بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ugu horeyn dadweynaha iyo maamulka masaajidka waa mahad celinaya bacd Allah subhanahu wa ta'ala inta kadib xilli abaareed baynu ku jirnaa ilaahay subhanahu wa ta'ala roob khayr qaba oo caamo dadka hasiiyo waxaan rabaa caawa waxaad taqaaneen inaan idin sheego إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسا وحكوت المامية وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين واني أما حصوصي بالي لدتك مؤمنين تعال حصوصي انتي وانا داسي دتك مؤمن كابي واحترطا دينتو معها معلومات ربضا والله قرر صدى waxa weeyaan wixii la isu sheegay oo lagu dhaqmo waxa weeyaan qofka muslimka oo halmaamay dib loo xasuusiyo si ay uga mid noqoto noloshiisa caadiga ah in kelmadan caawa rabo inaan idhaahdaa waxay ku saabsiisan tahay aafa min aafaati lisaan dhib ka mida dhibka carabka والنبي عليه الصلاة والسلام سيقول وحوت المامية المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلم كما وحل إلى هذا قف كدتك عرب كيسيك عنتي سكنوات كلام وحكوا النبي قوت المامية عليه الصلاة والسلام لبعدي بلن قادة أن الجنة بلن قادة يا أبو النبي عدي بلن قادة inuu ilaaliyo carabkiisa iyo farjigiisa labada qofkii ilaaliya anuguna waxaan u ballan qaadayaa buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam janno waxa uu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam dadku hadallada ay sheegaan marar bay hadal yidhaahdaan aanay u fiirsanin hadalkaasi aanu u fiirsanin bariya galbeed inta isu jiraan in leeg ayuu naarta hoos ugu ridaa qofku markuu hadlayay waa iska kaftamayay wuxuu qiimo badan ma siinaynin laakiin cinda Allahi siduu shayga kale ugu weyn yahay mashriq iyo maghrib inta isu jirto in leeg buu naarta hoos u gala وكي معاذ بن جبل الصحابي قال إلى ذا يلي إلهي رسولك سيئة وحنا نسكها حضينه ميان نلوق منايا معاذ وهو يذاك قبل أن تبين بقول أو ضد مية وجه النار وقلنا عن وحكوا حضين مو يعني وحكوا حضيان أي أهب النبي قول عليه الصلاة والسلام وحن نار تضدك كفوجية سيدا وجد وحن ربينا وحكت الماما وحويان مسألة التقانين لكن هدنا لقى جبن واي وربنا نكوع لإلنا وادتك وحكى شيء جيسي حمشديس إنك وحلقي أبابين إنه هيسنو أخبار سياسية إنه يتهيئ سي محاجري وحاجري لشيء يوم ودتك بقالة جوغنا لحنته مركا لحنته أي نغن إسها خبر كي سياسي إنه سشيء وحين نكور رمينا إنتو ذا وبدني ودنبي سيدا وجد أي النبي عليه الصلاة والسلام وحوت المامية برشادة مسلم كاين إنه قدر برش عافمات خبطة عافمات قبك وحكم بلا ما ددتك إنه عرف كاجي يقعد هذا كان بتقله ماشي قعدت هذا اللي كنا بتقلي ويا علاد باطل الله يدرر ماشي عرف كاجي اللي كنا بتقلي ويانا ده عرى اسماء يا علاد كلام باطل الله سيدا أوجد النبي عليه الصلاة والسلام صحابته وحوت المامية وررت حنت ما تقاني بقولي أتدرون ما الغيبة حنت ما تقاني بقولي
dhaqanka saxaabada in badan waxaa ka mid ahaa si ay nebiga cilmi uga kororsadaan wax kastoo xataa ay wax ka ogyihiin inay yidhaahdaan allahu wa rasuuluhu aclam alliya rasuulkiisaa og markuu ku yidhi xanta ma taqaanin bay yidhahdeen ilaah iyo rasuulkiisaa garan wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dikruka akhaaka bima yakrah waa walaalkaa oo aada ku sheegto waxuu nacayo gaar ahaan waxay yidhahdeen ghiiba waxa loogu bixiyey waa isagoo kaa maqan marka aada sheegto waxa uu nacayo waxa uu nacayaa wixii doonaysaba ha noqoto waxaa dhici karta waxaad dad qofnimadiisa ka sheegaysa inay tahay waxaa dhici karta waxaad diintiisa ka sheegaysa inay tahay waxaa dhici karta waxaad adduunkiisa ka sheegaysa inay tahay waxaa dhici karta waxaad dhismihiisa iyo qaabka jirhkiisa ilaahay u abuuray aad ka sheegaysa inay tahay waxaa dhici karta waxaad akhlaaqdiisa ka sheegaysa inay tahay waxaad reerkiisa ka sheegaysa inay tahay baabku doonaha ku saabsanaada imaamu nawowi wuxuu leeyahy wax allaaliya wuxuu qofku karaahiyeysto ee isaga si uun xidhiidh ula leh aanu rabin in wax laga sheego wax ka sheegoodu waa xan buu leeyahy waxa aad kaga sheegaysaa ama carab ha noqdo ama tilmaam ha noqdo isha aad jebiso carabku aad ku muddo gacanto aad qaabkaad doonaysa u dheh dhammaantood waa xan buu leeyahy xataa waxay culammadu yidhaahdaan waxaa xana inta qofka la sheegay inaad tidhahda ilaahay ina cafiyo waa xan bay yidhaahdeen yani ilaahay ina cafiyo umaad dan lihid bay leeyihiin inaad rabto cafwiga rabbiga inaad doonaysee waa duurxul aad u duurxilaysa bay leeyihiin qofkan wax laga sheegayo ayaad u duurxulaysaa bay leeyihin iyo nas'alu llaha salaama iyo kullu dalik bay yidhaahdaan ghiibaday ka tirsan yihin xantay ka tirsan yihin waxaa ka tirsan bay yidhaahdaan xanta inaad siiqatu tacajub u sheegto ama inaad ka murugaysantoo kale bal mu sidaa iyo sidaa yeelo yacni siduu yeelay baad duraysaa bay leeyihin miskiin hebel baa lagu yidhi waa caynkaa markaasaa tidhi miskiinnimadan aad sheegaysa maaha inaad leedahay waa nin iska miskiin oo ilaah yaqaana ee waxa weeyaan waa duurxul bay leeyihin aada u duurxulayso walidaalik wax kasta oo noqon kara bay leeyihiin qofku inuu naco in lagu yidhaahdo oo wax ka sheegahay wuxuu noqonayaa nooc xanta ka mid ah culammadu markay baabkan ka warramayaan 3 mas'ale ay kala saaraan oo luqada carbeed la yidhaahdo alghiiba iyo albuhtaan iyo alifk qolaa waxay yidhaahdeen nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay rasuulkiisa iyo waxaanaanu ku sheegayna hadduu yahayna isagoo maqan baad wax ka sheegtay laakiin waxaad ka sheegaysa wuu yahay laakiin muu rabo in laga sheego wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yahay had maqan ka sheegto oo aanu rabin faqad iqtabta waad xamatay haddii aanu ahaynna faqad bahadta buu nabigu yidhi waad ku been abuuratay marka haddaanu ahaynba iyadu waa been abuurad waa dembi ka sii weyn hadduu yahayna waad xamatay buu nebigu tilmaamaya xadiid culamadu ay ku tilmaamaan inuu xasan yahay ayaa waxa ay tilmaamaan isagoo nebigu fadhiyaa nin yimi dabeetana waxay ku yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkii bay ka warramayaan laa yaakulu xataa yuطcam bay yidhaaheen walaa yarxal xataa yuraxalu lah wax ma cuno in la cunsiiyo mooyaane waxa la siiyo mooyaane wax kale ma cuno ma guuro ma rarto in loo rara mooyaane yacni ninkan dacfi liidashay rabaan inay u qariyaan ama caajisnimo iyo kaslaamnimo ay rabaan inay u qariyaan marka waxay leeyihin yani xataa naftiisa ma daryeela inaad wax siisa mooyaane wax cuni maayo bay idhaahdeen ama in loo rara mooyaane neefkiisa intuu fadhisiiyo kooraha saari maayo wixii uu u baahnaaye wuxuu rabaa in loo raro nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi qad iqtabtumuuh waa xamateen markaasay yidhaahdeen inamaa xadaثnaa bima fiih
إلهي رسول كيسي وحو أهون بانو شيخنا إنك أن الليزين ماذا يوحو وطا حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه من نبول أحاكو غفلا ولا لك وحو يهينات كشيك تاباكو غفلا عنو الربين ويوحانو هين هدات شيكتو يدو أذى ليرادة وبهتان والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا إلهي وحولاي قوة ضدك المؤمنين تأكل بيه يكون شيء يرق يدمر با بغير ما اكتسبوا وحاني كسبن وحاني هين كل شيء قوة فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا قوة يقدم بوين يبين أبورد وين بيحمبارين با ربي كنت المامية إذا صدح هذا الشيء هو نوع من الغيبة بيلي وحو يهو نعيين أتكو شاكتو ورلقاق الشيء يراد خبينين أتكو شاكتو يميد هذا تقول بين أبورتين أتشاكتو مركا أما هو غيبة أما هو إفك أما هو بهتان وحو بيلي باب كم يسود هوسك ليه باب كان حكم كيسوا محي قرآنك يا حديث تباوح كسار أرتين حاراني علماء بدنا ده إجماع بابا يسار نقليان إن مسلم كسكوا فقصية علماء المسلمين تو إن سكوا فقصية ماشى سين أنا مرنا ببنانين إمام النووي باصو نقلنا بل جماهير العلماء وحي نقلنا وحي سوق جورنا إن الذنوب تواوين كمتي جماهير العلماء صاصي خبا إن الذنوب تواوين كم تهي إلى هنا القرآن كيسوى حكت المامية ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم واربركين بركة كليو حمن با إلهي لي متكين ميو جعلي يبا رب المامية هلب كولالكي وبختي ينوعونه marka hore hilib bini aadam in la cuno bini aadamku ka yaqiiqsooda dadku hilibkiisa ma cuno mar labaad inuu walaalka noqdo waa ka sii darantay mar saddexaad inuu meyd yahay waa ka sii darantahay ilaahay wuxuu ku tilmaamay marka walaalka iyo meyd hilibkiisa inaad cunto miyaad jeceshahay waad nacaysaa rabbi tilmaamaya idan xantani noocaas ay la mid sida walaalka iyo meyd hilibkiisa aanad u cunteen أياني أفعنين إن هذا وحمته إلهي وحلي ولا تلمزوا أنفسكم ورنا فينا عيبيننا مسلم هو نف واحد ولا كان مركز عيبي سواء حيلا متأدو نفت هذا عيبي ولا تنابزوا بالألقاب ورنا نيسها قروح ضبطنين هيسوي لنا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون إلهي القرآن كوحينا وقلت الماما يدك وقالين لك والرميو ويل لكل همزة لمزة عذاب يهلاك يهوك وحوصق ناضي متكسته وحنبضنا أويا همزك يلمزكو ومتكسته عيب بدنا وحي كوكلا فرقيان علماء قاركود لبدا إري من إنه يهي بالفعل من باللسان inaad isha ama carabka ama qaabun aan hadal ahayn aad u xamanayso u xaqiraysid ama ma ahayn aad carabka ku xamanaysid labadu waa isku mid marka waa qofkii oo aad waxaanu ka raali ahayn aad ku tilmaamayso ilaahi subhanahu wa ta'ala kuwa wuxuu ku tilmaamaya la yumbadanna fil hutama ba ilaahi soo iyagu dadka cirdigooda iyo sharaftooda bay duminaynin إلهي وحو قالين ده وحا لغو طوري دونا بانا لحطما بربوريسا نار ليرادو نار بربوريسا اسبدت كشرفتي سو بربورينا إلهي وحو لي نار ينوح بربوريسا أيو قالي دونا أيها الأحبة إلهي وحو لي ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بالنميم مناع للخير معتد هم مقلب با إلهي النبي يسكت المام يكون كستور دار بدنا أوليته أو عيب بدنا همازة دتك عيبية وحكشيجا نميمة ضيّة يسكت درك كشقية الهمازة هي المغتاب للناس بكفصرة
إلهي سبحانه وتعالى قرآن بدن بكت المامين ممنوعت نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حجي وحجي ود وقت دمنا أها سنة السقالات ميلها أها دور قربو خطبته سنورك صدح ميلها خطبة وحا كتشرة مسألة ومسلمين تكعل عليني يدو بيدا دان بقول كنا مسلم ضد كبدني جوجان أيوه ويدي وربشنا كشرتم واتما مشنا كشرتم وحجي سؤال عنك سنة بويديني سئو التنبيهية يسوع تشستان استلمر كان حرمة وحصاص على والربين وتلمام وحيوش يجان بلد كانوا بلد الله الحرام يهي بشو أشهر الحرمين يتهي وركاسي وشيء نبي عليه الصلاة والسلام وحولي فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ورديجين يحولهن يعرضين عرضك وحل إلى هذا موضع الذنب إلى هذا والمدح عرضك وحل إلى هذا وشرفت قفك بني آدمك وماشى أمانته أما عيبينته هاي كقدر عاد قفك بني آدمك نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حج كاسي إن صدح قور قاريسة أي خطبة دا تشيدين والله هذا يا صحابة ده وبقول كنا مسلمون ميل تاجن ووعدين أيوه أو لا يروح على غيا وسنة كنت بدي إننا ماشان سقيما لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا لما نقول من سنة كده بديت ودردارن كون نبي وكتجي دردارن كاسي وحويان دت كينا النبي قال سقف كمسلم كه بيجيسه مال كيسه هي شرفت ديسه وحا وحياله تعرب كاو بدن وحا وحياله وحنتا يا وحي لها المال وحا النبي شيغي عليه الصلاه والسلام ان من اربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق الربا ده واحد نقارنا شرع جاينا يكون أدقت وشيء إلهي القرآن كيس كنت المامي عند الله تما دقال هودي يرجعود الدب النبي يقول حلي الرباين كوجر ربا السما حكم ده كوجر كرّي الربا ده وحكم ده الاستطالة في عرض المؤمن استطالة ده أي إطالة اللسان adigoo carabkaaga ku balbalaadhiya qofka muslimka sharaftiisa bigayri xaqin ugu balbalaadhiya oo marar yaro kooban bay soo reebi doonaan culimadu oo ay yiraahdaan waa mararkay banaantay inaad wixii waxa anfacaya inaad sheegto oo qura waxaad qiyaasi kartaa nabiyullaahi maxamed alayhi salaatu wassalaam وعائشة قبل كلام مسلمة ده يكون تدي وقابنت هبلاي وقابنت أو النبي يقول لي وين أتكو هذا الشيء هدي بدل لو قصة ويقص له هدي وحيابها المدب كالدورية وحشرة ده بيا هدي واحد مدب كالدورية اللي يقول رضاي إنه مدب كويس بدله سكلا بدل عندهم النبي يقول لي هدي اللي قد لها هذا الكاغ واحد مدب كالدورية بدل عندهم بيدوري لهيد وحي ترينا ومحي وقابمتي بيتري waxay culimadu yiraahdaan marka waxay tilmaamaysaa sida ay u adag tahay qof muslima in wax laga sheego waliba wax ka sheegaasi meelaan wax anfacayn inuu yahay nin baa zinaystay dabeetana uu toobad keenay dabeetana nabi maxamed buu yimi alayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi hal rajmiyo wala rajmiyo dadkii rajmiga ka soo noqday laba wada hadlayo mid baa wuxuu yiri bal ka eega inta ilaahay ceebtiisa asturay buu isturi waay ilaahay sida ayda loo garaacay sida ayda dhagax loogu dilay nabiga alayhi salaatu wassalaam xadiidka in kastoo sanadkiisa culimadu ay leeyihiin waa daciif waxa uu tilmaamayaa ninkaasi inuu ku tilmaamay wax aad u foolxun bakti intuu soo dul mariyay inuu yidhaahdo baktigaasuu lami cun dabeerkan baktiyey ما هو كان ما يلا عناية ولا لي واحد تري وواحد سوكله
waxaynu leenahay aayadda qur-aaniba dee waa macno ay tilmaamayso ayuha alaxiba wax diinta aynu ognay inay mamnuuc wadato reebantay baynu fudaydsanay ilaa soomaalidu ay dhahdaan xooluhuna waa cawsku nool dadkuna waa maxay waxa laga dhigayba wax lagu nooliyay inay tahay xanta iyo waxa kale waxa nolosha ka mid oo fudud inay tahay baynu ugu maahmaahanay waana diinteeniyo aynu runtii meel weyn kaga dhacayno waa intii yarayda ajarka ahayd ee salaada iyo soonka aad shaqaysatay oo aad cid kala siinayso maxaa ku bixiya dadku inay wax hantaan culamadu waxay yidhahdaan kow dacfi alwarac waliimaan dadkoo xalaal miiradnimadu ku yaraato iyo iimaankoo daciifa waayo waxay yidhahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisha markii beenta laga sheegay ayuu zaynab bintu jaxash u yimi zaynab caaisha waxay leedahay haweenku nebigu qabay waa gabadha qura ila loolami karaysay yacni quruxda iyo qabiilka iyo waxa marka la eego waa gabadha qura ila loolami karaysay dabeetana nebigu wuxuu weydiiyey arrintan waxba ma ka maqashay waxay tidhi yaa rasuula allahi axmi samci wa basari ilaahay rasuulkiisiiyo anigu ishayda iyo dhegtaydaba waa ilaashanaya caasha waxaan khayr ahayn ka sheegi maayo bay tiri waa gabadha kale darra u ah lala qabo haweenka la wada qabana inta badan loo lama si uga dhaxeeya marka waa gabadha lala qabo oo gabadhii lala qabay weliba wax ceeba laga sheego magaalada aada ugu faafay markaasaa waxay leedahay anigu ishayda iyo dhegtaydaba waan ilaashanaya caaisha oo xadiidka ka warramaysaa waxay leedahay facasamaha allahu bilwarac bay tidhi gabadhaa ilaahay wuxuu ku badbaadiyey xalaal miiradnimadeedii dembi iska ilaalinteedii bay ku badbaaday bay leedahay iyadu halkay dad kale dabbaasheen ee galeen culammaduna waxay yidhahdaan xalaalnimarnimada waxyaabaa ugu waaweyn waxaa ka mida bay yidhahdaan carabkaagu aada ilaaliso oo aada ka ilaaliso dunuubta tirada badan leh waxyaabaa dadka ku bixiya xanta waxaa ka mid a fadhiga oo lagu hagaajisto dadka wada fadhiya sheekooyinka dee fadhigay ku hagaajistaan laakiin kuwa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa aakhiro inta naarta lagu guro inay odhan doonaan wa kunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin kuwa dhumbada warka un la wadun baanu anana sheekadaanu dacalkayga kaga jirnay nakhuudu maca alkhaa'idiin kuwa dabaalanaya kuwa dhumbanaya baanu la dhumbanayni nabiguna wuxuu leeyahy waman iltamasa rida annaasi bisakhat illaah wakalahu allahu ila annaas xadiidku inta uu ka dheeriyey wuxuu nabigu tilmaamayaa qofka ilaahay raalli geliyaan dadka cadhadooda u eegin ilaahay baa kaga filaada dadka cadhadooda iyo adagooda iyo dhibtooda ilaahay baa kaga filaada cagsiga qofka sameeyana ee maxay dadka inuu raalli geliyo ilaahay kaga cadhaysiiya dadka inuu raalli geliyo ilaahay kaga cadhaysiiya dadkaa loo wakiishaa buu nebigu tilmaamaya yacni dadkana agtooda hadhow iyagana badbaadi maysid adna markaagunbay kuu miisi doonaan dadadba dadka u miisto ilaahay wuxuu ina leeyahay fawaylun yowmaidin lilmukadibiin aladiina hum fii khawdin yalcabuun maalinta qiyaame halaag ba u sugnaaday kuwii beeniyey rabbigood ee waa maxay iyagoo cayaaraya wax kastaba baatilka dhumbanayay xanta waxyaabaha badiya waxaa ka mid ah cadho aada qof u qabto ama xaasidnimo ama wax la mid ah oo marka wax laga sheega aad maad istidhaahdo wax ka sheego sharaftidiisa hoos u dhig ama loolanka innaga waxaynu haysanaa hebel maanta jacbu ku dhajiyey siyaasi hebel baa hadlay oo qoladaa jacbu ku dhajiyey wuu ka cadhaysiin weeya waxaynu wadnoo dhami waana dembi uun ila khayr maad sheegaynini
waxaad waday waa qof muslim oo laga cadhaysiiya buu ahaa waxay yidhahdaan waxyaabaha keena waxaa ka mid ah adduunye jacaylka iyo madax jacaylka xub dunya walxirsu cala su'udud bay yidhahdaan adduunye jacayl iyo madaxnimo raadin oo qofka madaxnimada raadinaya wuxuu jecel yahay isaguna inay ammaantu ku ururto dadka kalena ceebahooda in banka lasoo wada dhigo si uu isagu u noqdo qofka mudan ee dadka agtooda mudan inta kalena inay ceebowdaa buu jecel yahay ayuha alaxiba waxaynu ka warramaynaa waa janno iyo naar kala doorashadood inaad xagga cadaabka u kacdo iyo inaad xagga jannada u kacdo ilaahay cabsidiisa iyo xishood rabbi laga xishoodo ayaa keensada qofku carabkiisa inuu ilaashado ilaahay wuxuu leeyahay am yaxsabuuna anna laa nasmacu sirahum wanajwaahum balaa warusulunaa ladayhim yaktubuun dadku ma waxay u malaynayaan inaanan maqlayn baa ilaahay yidhi waxay qarinayaan iyo waxay ku faqfaqayaanba waa maqlaynaa baa ilaahay leeyay kuwii aanu u dirayna ee malaa'igta ahaana waa qorayaan baa ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadu wuxuu ku yidhi war ilaahay ka xishooda istaxyuu min allahi xaqa alxayaa war ilaahay ka xishooda xishoodku xaq u leeyahay markaasay dhahay ilaahay rasuulkiisiiyo rabbi waa ka xishoonaynaa walxamdu lilah bay dhahay innaa nastaxyi walxamdu lilah sidaa uma jeeda buu nebigu yidhi war madaxa iyo waxa uu koobo ilaaliya yacni dhegtaada iyo ishaada iyo kuwan ilaali caloosha iyo waxay weelayso ilaali buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayuha alaxiba waxaad qiyaastaa uun markaad qofka xamanayso waa intii xasanaadka aada lahayd oo aada daadinaysa uun intii ajarka lacagtaada ma qubi lahayd waa maya nina lacagta ma daadiyo oo lacagta iyo ajarka iyoma qiimo badan lacagta waxaa laga yaabaa minis yaro adduunka wax ku fudaydiya inay noqoto ajarkuse adduunkana wuu fudaydiyaa aakhirana waa waxa keliya lagu badbaadayo sidaa awgeed buu nebigu wuxuu saxaabada ku yidhi war caydha ma taqaanin atadruuna man ilmuflis buu nebigu yihi caydha ma taqaanin qofka mufallaska qofka dee kacay ee caydhoobay waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyow caydha waxaanu u naqaanaa man laa dirhama lah walaa mataac ninkaan mood iyo nool toona haysanin baanu caydh u naqaanaa bay dhahay ninkaan mood iyo nool toona haysanin wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ninka caydha ama ninka kacay waxaa la yidhaahdaa waa ka aakhiro yimaada isagoo salaad soo sameeyey oo soo soomay oo zako soo bixiyey soo arkaanulislaamkii maaha wuxuu la yimi soom iyo salaad iyo zakuu nebigu tilmaamaya laakiin wuxuu kaloo yimi buu nebigu leeyahy isagoo kaa caayay oo kaa qadfay oo kaa maagay oo kaa xoolihiisa cunay oo kaa dhiiggiisa wax ka daadiyey ayuu yimi dabeetana ajarkiisii baa dadka loo qaybiyaa buu nebigu leeyahy ila wax kaloo aad ku daynbaxdaa ma jiro maalku aakhiro waa intii ajar aad shaqaysatay waa salaadii waa sakadii waa soomkii waa intii xasanaadkii aad shaqaysatay dee daynna waa lagugu leeyahy daynbaxa aakhira marka waxa weeyaan waa ajarkaa la gurayaa hadduu dhammaado maxaa la yeelayaa markaa wuxuu nebigu tilmaamay qaar wuxoodiiba inay dhammaanayaan intii uu soo shaqaystay dad baa loo qaybiyey welina qaar kaloo wax ku leh baa taagan qaar kaloo weli wax ku leh ayaa taagan wuxuu nebigu tilmaamay kuwa kale dembigoodii inuu dhigantaa ajarkuu kaa qaadan lahaa baa laga soo qaadaya adigaa lagu saaraya isaga dembigii baa laga nuqsaamiyey adigana wax laguu kordhiyey dunuubta kuu biirtay sayi-aadkii baa lagugu sii biiriyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kaas ninkaabaa ah caydh haddaad rabto iyo nin khasaaray kaas baa ah ayuha alaxiba
waxaynu u baahanay waxaanaynu saydhsaydhinayna waa xoolahaagiiyo inaad ilaaliso ceebaha dadka intaad ku mashquuli lahayd inaad adigu ceebahaaga ku mashquushid qole heblaaya caynka iyo nin hebel baa saatan iyo bal adigu isbaadhbaadh imisaad ceeb leedahay imisaad nuqsaan leedahay imisaad adigu isbaadhbaadh anas ibnu malik baa waxaa laga sheegaa wuxuu yidhaha magaaladan madiinaan anigu soo gaadhay oo duul lam yakun lahum cuyuub han ceeb lahayn ay deganaan jireen facaabu nnaas dabeetana dadkay markii dambe ceebeeyeen fasaarat lahum cuyuub buu yidhi waxaan soo gaadhay buu leeyahy aqwaaman kaanat lahum cuyuub qaar ceeb lahaa laakiin dadka iskaga aamusay oo aan dadka ceebtooda sheegin oo iyagana ceebtoodii la ilaabay buu yidhi ayuha alaxiba waxay culammadu yidhaahdaan waxyaabaha waxa kan daawada u ah ee lagaga fogaado waxaa ka mid ah inaad meelaha goobaha fiican fadhiisatid dadka saalixiinta ah iyo dadka khayrka hadal haya aada la fadhiisatid oo iska daysid majaalista had iyo goor sharka lagu hayo iyo kuwa bataalinta ee camal kale ay meelahay fadhiistaan waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa jaliiska saalixa iyo jaliiska suu'a waxa u dhexeeya faraqa u dhexeeya buu nabigu tilmaamaya waxaa fiican inaad akhridid taraajimta iyo taariikhda iyo manaaqibta dadkii saalixiinta ahaa iyo dhaqamadoodii abu caasim الnabiil baa laga sheegaa inuu leeyahy maqtabtu musliman mundu calimtu ana allaha xarama algayb qof maan xaman buu yihi sidii aan u ogaaday xantu inay ceebtay inay xaaraantay si aan u ogaaday cid maan xamanin fudayl ibnu ciyaad baa wuxuu leeyahay taabicigaa weyn baa wuxuu yihi waxaanu soo gaadhnay dad hadalkooda jimce ilaa jimce la tirin karo oo la xifdiyo yacni toddobaad dhan intii eraya uu kugu yidhi waad xifdiyi kartaa buu leeyahy jimca dambe waad sheegi kartaa toddobaadkaaba wixii uu ku hadlay siday u yaraayeen xarmala nin la odhan jiray wuxuu yidhi waxaan maqlay ibnu wahab sheekhii la odhan jiray ayaa wuxuu yidhi waxaan sidhi buu yihi war xanta saad isaga daysaa waxaan ballan qaaday buu yidhi haddaan qof xanta inaan maalin soomo soontii baa baktiga iga dhigtay buu yihi xantii waa xantaa haddana soon waa xantaa haddana soon maalintii dambaan idhi buu yidhi war maya soonta waxaad uga jeclo badantaa jirtee markaan waxantaba dirham baan bixinaya adigoo yidhaahda markaan waxantaba $10 baan sadaqa u bixinaya dee markaan arkay jeebkaygii oo maranaya buu yidhi xantii waa iska daayay markay noqotay bixi oo bixi oo bixi waxaan arkay buu yidhi jeebkaygii oo dalooshamay dabeetana waxay noqotay buu yidhi wadda aan iskaga daaya xanta inaan xan iska daayo waxa keentay buu yidhi markaan idhi buu yidhi wax bixi ayuha alaxiba nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamaya haddaad dadka ceebahooda ka shaqayso adna ilaahay inuu ku fadeexadayba u fiirsa uun qof kastoo ceeb badana ah oo dadka wax ka sheega aakhirka wuxuun baad arkay isagoo ay isaga dacallada haystaan oo qaar badan ay wax ka sheegayaan saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahay yaa macshara man aslama bilisaanihi walam yufdi liimaanu ilaa qalbihi waar dadkiina kan carabka uun ka islaamay ee aan iimaanku qalbiga ka gelinow laa tu'du lmuslimiina walaa tucayiruuhum walaa tattabicu cawraatahum war dadka muslimiinta ha dhibina oo ha ceebaynina oo ceebahooda ha raacraacina fainahu man yatabic cawrata akhiihi lmuslim qofka dabagala un qofka walaalkii ee muslimka ah ceebtiisa yatabic illaahu cawratah ilaahay baa isna wuxuu dabagalaa cawradiisa iyo ceebtiisa qofkii ilaahay ceebtiisa dabagalana yafdaxu walow fii jawfi raxli gurigaaga bartankiisa joognaya ilaahay waa ku ceebayn haddii rabbi subxaanahu wa tacaala u fiirsa un dadka wax ka sheega inta badan
aakhirka iyana way fadeexadoobaan iyana qaar kale unbaa ilaahay ku itixaamaa oo fadeexad unbaa ku soo baxda walidaalika waxaa habboon ceebta inaad xantaysa iska daysa haddii kale adduunkaa ciqaabi kuugu iman oo xabaashay kuugu iman cadaabulqabriga waxaa ka mid a nebigu calayhi salaatu wasalaam qaar buu soo maray markaasuu yidhi labadan waa la cadaabaya wax weynna lagu cadaabo wax weyn maaha dembi weyn may gelin yacni waxaanay iska dayn karin weynidiisa na maaha wax lagu cadaabayaa bay ku fasiraan culammadu midikaadadaanu iska maydhi jirin ka kalena waxbuu xaman jiray xadiis nabi ma sheegtana waa jirtaa laakiin riwaayadani waxay sheegaysaa ghiiba xan baa isna lagu cadaabaya idan adduunka xantu adduunka waad ku fadeexadoobi adna xabaasha markaad tagtana waa lagugu cadaabi dee aakhiro markaad tagtana waa ka warannay iyana naar baad ku geli oo nebigu calayhi salaatu wasalaam micraajka markii la kaxeeyey wixii uu soo arkay waxaa ka mid a qaar baan arkay buu yihi ciddiyo dhaadheer leh oo saa isu xaganaya oo wejiga iyo laabtooda diiraya markaasaana yidhi buu yihi jibriilow kuwani maxay ahaayeen markaasuu wuxuu yihi waa kuwii hilibka dadka cuni jiray yacni waa kuwii dadka xaman jiray iyagana sida baa cadaabkoodu noqonaya wayaqacuuna fii acraadihim buu ku tilmaamaya waa kuwii hilibka dadka cuni jiray ee cirdigooda ku dhici jiray ayuha alaxiba waxaa habboon qofka muslimka ahi wixii horena inuu ka toobad keeno waxa dambena inuu iska ilaaliyo xantu inay xaaraantahay waa wada taqaaneen laakiin maxaan idinku celinaya caawa uga hadlaya waxaan uga hadlaya inaynu dhaqankeena bedelno ma aha inaan macluumo cusub cilmi cusub idiin sheegi maayo waa wax taqaaneen xantu inay xaaraantahay qof kastoo muslim waa yaqaanay soo maaha waa wax la yaqaanay laakiin waxaynu isxasuusinaynaa war sibaynu u fudaydsannaye ciqaab kulul baa kaa ratibmaysa adduun leh oo xabaal leh oo aakhiro leh intaba leh ilaahayna wuxuu ina leeyahy watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun war mu'minow dhammaantiin ilaahay u toobadkeen toobadda waa kuwa culammadu inoo sheegi jiray xadiidkii nebiga ee ugu horreeya annadmu tawba inaad ka murugooto wixii hore kaa dhacay xumahaagii ka murugooto inay toobadtay inay ka mid tahay toobadda inaad ka fuqdo oo wixii baan iska wadaya haddana waan toobad keenaya inaanay qurux badnayn tawba nasuuxa waxaa ah wixii markaad ka fuqdo oo culammadu waxay kaloo tilmaami jireen inay ka mid tahay akhiiran markaad waxaasoo dhan hadday ku saabsiisantahay bini aadamna inaad istixlaal weydiisato xoolo dad iyo dhac iyo cirdigooda inay hadday waxaa tahayna inaad weydiisato inaad ka xalaalowdo wari cafi inaad tidhaahdo nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeyahy man kaanat cindahu madlama liakhiihi min cirdin aw min shayin falyataxallalhu minhu alyowm war ninkii dulmiyey walaalkii ee ama sharaftiisa dulmiyey ama lafihiisa wax kale ka dulmiyeyow war imika weydiiso inuu xalaal ka noqotid inuu ku cafiyo hadda weydiiso inta aanay imanin maalin aan dirham iyo diinaartoona jirin buu nebigu leeyahy maalin aan xoolo wax tarin iyo wax kale inta aanay imanin hadda weydiiso waa maalinta camalka uu noqonayo waxa lagu dayn baxaa intaanay taasi imanin hadda weydiisa buu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam culamadu waxay yidhaahdaan si guud haddaad u weydiisan karto way fiicantahy waxaanu haddaad u sheegto inuu ka sii cadhoodo oo dhib kale sii keenaya hadday tahayna way fiicantahy inaad u sheegto haddayse mushkilad kale sii abuurayso oo waxaan haddaad sheegtaba bale kale ka sii ratibmayso waxa ka roon bay yidhaahdaan inaad waxba u sheeginaya inaad ilaahay isagana dembi dhaaf u weydiiso inaad ilaahay subxaanaه wa tacaala isagana dembi dhaaf u weydiiso ilaahayna subxaanaه wa tacaala aada uga toobad keentid haddaanad adigu waxaman xantana ha dhegaysan
dadku inna way dhegaysataa inna warkay akhridaa adigu majliska ha camirinoo ha odhanin xantaan anugu waa iska aamusanaa une iyagaa warka waday iyana ku anfici mayso ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay waqad nazla calaykum fi lkitaabi an idaa samictum aayaati illahi yukfaruu biha wayustahzahuu biha falaa taqcuduu macahum xataa yakuuduu fi xadiiثin gayr inakum idan miluhum in allaha jaamicu lmunaafiqiina wاlkaafiriina fi jahannama jamiica qur-aanka waxaa soo degay baa ilaahay leeyahay haddaa meel maqashaan fadhidaan ilaahay aayadkiisa ama laga gaaloobaya ama lagu jeesjeesaya ama dee la dhinac marayo waa meel dembi ka socdo ha sii fadhiyin baa ilaahay ku yidhi ee iskaga tag haddaanay war kala akhriyayna warku uu dembi yahay dembigaa golihiisa waxba ha sii fadhin waa laba mid un bay culammadu yidhaahdaan inaad radin karto tidhaahdo waryaa waxna wadaan waa dembiya inaga daaya inaad radinba karin iskaga tag markaa ha sii fadhiin majliskaasi haddaad sii fadhido waad la mid noqonaysaa nebiguna wuxuu leeyahy man daba can cirdi akhiihi bilgayba kaana xaqan cala allahi an yactiqahu min annaar qofka walaalkiisa muslimka ah difaaca isagoo maqan nin baa la maagaya war nabadgeliya baad ku tidhi waa difaacda ilaahay dartii baad u difaacaysaa inaan wax la xamanin maaha teeni dee uun kuwa reerkiina marka lasoo qaadanaya inaad cadhooto kuwa reerka kalehana inaad ka qayb qaadato taa maaha ee waxaynu ka warramaynaa inaad dembinimada diidan tahay dembinimada inaad diidan tahay walaalkaa haddaad sidaa ku difaacayso ilaahay wuxuu korkiisa isna isa saaray qiyaamaha inuu naarta kaa difaaco kaana xaqan cala allahi an yuctiqahu min annaar idan ayuha alaxiba nusuusta qur'aanka ee ku soo aroortay nebiga calayh isalaatu wasalaam oo meel fadhiya xadiis dheer ayaa nin la sheegay malik ibnu dukshin la yidhaahdo markaasaa mid yidhi daka munaafiqun laa yuxib allaha warasuulah kaasi waa munaafiq alla iyo rasuultoona ma jecla markaasuu nebigu wuxuu ku yihi laa taqul lahu dak war ha odhanin sidaa war miyaad ogeyn inuu leeyahay laa ilaaha ila allah yuriidu biha wajha allah yuriidu bidalika wajha war sawka laa ilaaha ila allah le oo ilaahay wejigiisa u leh markaasay joogsadeen saxaabadii waxay dhahay allahu warasuuluhu aclam amaa naxnu fawallahi laa naraa wuddahu walaa xadiidahu ilaa ila lmunaafiqiin ilaah iyo rasuul baa naga og laakiin ninkaa wuxun baan anagu inta badan aragna isagoo munaafiqiinta la fadhiyo munaafiqiinta ka dhex warramayo baan anagu arki jirnay bay leeyihin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay markaa war ninka tawxiidsada ee ilaahay wejigiisa ku raadinaya ilaahay naarta waa ka fogeeya waxay tilmaamaysaa in dadku ka dheeraado xanta mararka qureel ay inuun bannaanaan karto laakiin dadka badh baa inta badan intay u raaraadiyaan qiil mararkaasi awrkooda ku kacsada war hadda aakhira kaa dambaysa ilaahay maxkamadiisiina waa dambaysa mararka qura inuun ay bannaanaan karto waxay idhaahdaan waa haddaad maxkamad ka ashtakoonayso kale oo ilaahay qur-aanka wuxuu leeyay laa yuxibu allahu ljahra bisuu'i min alqowli ilaa man dulim dee markaad ashtakoonayso waxaad sheegaysaa wixii lagugu sameeyey waana laga yaabaa inuu isagu diidan yahay waxa in la sheego laakiin markaan xaqaagii inaad dhacsato qaadi muslima baad leedahay waxaasaa igu dhaco saasaa laygu sameeyey markaa waa bannaantay bay culammadu yidhaahdaan oo waa kuwa xadiidku sheegayo layu lwaajidi yuxillu cirdahu wa cuquubatah ninka dadka xoolaha intuu ka daynsaday isagoo xoolele meermeeriya in la sheego oo cirdigiisa wax laga sheego la yidhaha xoogaana meermeerinaya waxa iyagibuna siin la-aya ama qaadigu cuquubo saara waa bannaantay buu nebigu ku tilmaamaya mararka qura ay dhici karto inaad sheegtaa waxaa ka mida bay idhaahdeen alistiftaa fatwaad rabtaa si kalena kuma sheegi karti laguguma fatwoon karo inaad leedahay dee aabbahay baa i dulmiya ama walaalkay baa i dulmiya ama waxan baa igu dhacay maxaan sameeyaa waa fatwa doonaysaa diiniga laakiin waxay yidhaahdaan mararkaasoo dhanna inta qardiga inta danta fulinaysuun baad sheegaysaa dee iska wadi maysid yacni inta fatwadaadu ay kuugu asaxaysa in si saxa lagugu sheego ama
wixii ay isku hayseen lagaaga garnaqayo ma jiro laakiin wuxuu sameeyo dhan meelaha kale ka sameeyaa dad soo tiriso de ma aha baabkii laga reeday marka waxa laga hadlayaa waa dantaada tan marka wixii aad ku gaari lahayd inay tay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam hinda ayaa u timi hinda bint Utba waa gabadhii uu qabay Abu Sufyaan saxaabigii la oran jiray Abu Sufyaan waxay ku tuhmaysaa inuu yara gacan adag yahay waxay tiri ilaahay rasuulkiisiiyo adagu de waa gacan adag iyo nama siyaanagii carruurta wax lagu filan annana de markuu nasiin waaye marmar baanu ka qaadnaa marka waxay sheeganaysaa inay wax ka yara qaado ee xaalka iyagu muxuu yahay khudi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf buu nabigu yiri inta biilka adiga iyo carruurtun ku filan ka qaata buu nabigu tilmaamay marka ma oranin ninka maxad dabacalnimo ugu sheegaysiyo waxaasi de intan ay sheegtay waxay ku rabtay fatwo in loo sheego oo may rabin ceeb kale de waxay rabtay waxan yar ay ka qaadaysay inay u banaan tahay iyo inaanay u banaanayn waxay dhaadaan mararka qura ay banaantay waxa kamid ah tagyiirul munkarka munkaraad meel ka socdaad aragta waad adigu mar radin kartid dee haddaad booliska u tagto tiraa war meesha waxa lagu hayaa rabshade wax ka qabta waa iska banaantay bay leeyihiin ilaan waa ciddii wax ka qaban karaysay laakiin intaa in ka badan munkarka un si loo radiyo hadday tahay ka badan ha sheegi waxaa la mida bay dhahaan nasiixa guud oo dadka muslimiinta waxaad kula naseexaynayso laakiin waa markay naseexa tahay ee maaha markay ceebayntahay مثلا قبل ما النبي قوتي عليه الصلاة والسلام دبتنا صدح نين أحد حتيبة وشاكت وعيت لي هبل يهبل يهبل باقور قربه كان قور سدابي نبي قويديس نبي عليه الصلاة والسلام مركاو الربا كي قور سن لهيدون وشاقه هبل بو نبي وخيري حبا ما هيستو معاوية اللي كبر كبر كده النقطة النبي يقول هبل فرجل طرب لا مال له عيد كلك سي وسعلوك حبا ما هيستو أبو جهمنا وشو دكتك وستة أبو النبي يقول يعني دمر كو قراعة أسامة قول سبو النبي يقول مركاكو يقول وحو النبي يقول المام نمان كي قبرنا الله هذا ناكاسنا وحبا ما هيستو كاننا dumarku u garaaca ee ka kala guurso marka erayada wuxuu nabigu u sheegay bay leeyihiin nasiihatan li hadhihi almar'a gabadhatan oo uu naseexaynayay inay mid khayr qaba guursato ama mid nolosheedu isugu baxayso inay guursato culimadu waxay kaloo sheegaan ninka isaguba la banbaxa ceebta كان وحيد هذا نسوي حن ماله ويعني حمه بنك للجوجا تين تصخرة ما بون كارد عندها وضد سمرة وصخران اللي هذا ده سجابا سجى يسموشي ما هني ما يمالك يرحم ما تو غورجس كي قرصن شلون ده بدو صيرة بحما لكن هو حبق لها كاسكتشيفا وميدان عيب تقارنين إسبا مجاهرة وحيد هذا المجاهر بنفسه المستعلم ببدعته أو بمعصيته كاسب هذا علماء حن ماله وكيو النبي يقول هاي وكلام إلها بئس أخو العشيرة وابن العشيرة بيتبقى قريق النبي يقول سو قراعي تبعتنا ورا لا يغفر واي مركي دمال لا يقول نينا النبي يقول دونين بالنقطة النبي يقول وانو كفري وانو سود ويا لكن عايشة مركو كفري يبو حكوي النبي يقول بئس أخو العشيرة يعني وأري لا تلمام ينون نحيه بل النبي وحو تلمام إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه اتقاء فحش دتك وحا الشر بدن كي دتك أوي دارتان أفحمدي سيرنبتي سينك وعدان دتك بعد ما جرادوك عصور بحات سلادي ورمكو كعايد دون هاي اسكنف حاجة كمر أما أمكم بوحو شيء دون كان أبو دتك وحا الشر بدن كي كوي دتك يسقى إلى ليان حمهود دراديد كواس وكلا بي علماء قارين هذا حنتيسو أرمي بنانان كرتا وحين لأن هاي وردانو كبدا مويان اسكا إلالي وحبا قيل هكو سيبان بنايساني
حتى هذا كتك ألفتيسا ديدا بكار راعي مايو بكار راعي مايو أدقونا سيانا دقة كلام مسلم كأجود وجردين مواضع تهمة إسكيلالي أدقونا ما إله اللي يسكتهم يستو هتجي والنبي عليه الصلاة والسلام هبين بيسقوا معتكفة مساجد كسكا اعتكاف سنة أيها هوين كيسي ميت كم يدي صواب وقت دبت أنا عبار بوشيكي كدي بوسيك حي كورجيدين تجيني يبوسيك حي يسقوا قبر الله صعدة أيها لبس حابة أركان دبت أنا ويدقدقين وحلو وارسكتشوغا وعد كلامه هو صفيه من النبي يعني inay soodhanin nabiga gabadhan uu la joogay ma aysan qalbigooda ba ugu dhicin ayuu nabigu wuxuu leeyahay war waa heblaaye iska jooga buu nabigu tabaa ala rasulikum inna safiya bint huyay saxaabada waxay dhahay subhanallah ya rasuul ilaahay baa xumakahu fan maadaama ku tuhmayna bay deelay dabeetana nabigu wuxuu war shaydaanku bini aadamka dhiigu dhex cararaaye iska socda buu nabigu tabaa idan waxay culimadu yiraahdaan adiga laftaaduna inaanad mawaadic tuhmaha tagin ayaa muhiim ah waqtiga salaadku uu dhow yahay waxa ku soo koobaya wax weeyaan ma filayo waxaydan aqoonina sheegay intana sheegayba waa in culimadu idinku celcelin jirtay hore u taqaaneen waxaan se u doortay inaan caawa sheego haddana mar kale idinku celiyo in dhaqankeenu wax iska bedelaan diintu markay noloshaada wax ka bedelaysay diinta hayo qiimo leedahay marka kale aday xujo kugu tahay cadaabkaad isu sibiirinaysaa marka kale waxay qiimo samaynaysaa markay noloshaada wax ka bedelayso waxay leenahay marka nolosheena wax ka bedesho carabkeena wixii ka soo baxaya nabigu wuxuu yiri war ninkii ilaahay iyo rasuulkiisa rumaysano ninkii ilaahay iyo maalinta qiyaamada rumaysano buu nabigu leeyahay man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran أو ليصمت ورما خير كو هذا لما إسكام النبي عليه الصلاة والسلام وحيات سلادة خير ما كهليس هذا وحيات سلادة خير كهلي ميسي إن هذا مستابق في عن وحيات سلادة هي خير كهلي ميسي نلاش نوات كلا قرنيس أو واحد سلادة وخيريه وحن خير هاي قفل بوا قرنيه حن خير لجاه لا يم حن خير لجاه لي تلادي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحويان قفكي إلهي مال أنت آخر الرميو وحي أن خيركو وجرين إسكا آم أما خيركو هذا أما آم عرب كاو والنعمة وعد كايري هالكاكو شراء وإلهي سبحانه وتعالى وكو قلدي واد مخلوقة كالوردن الدنيا نولها إن الجوات كيجا قديسنتي عرب كاسادو كوجا ما كحرونا ما دوا حكاحد مسا هذا الكيورد بني آدمنا وابا هذا قيمها وبا هذا الكاسو وبدن إلهي أكو عاصم إلهي وقوم هذا كو وردي وران كو آخر السو دتك وحسن وشيك وحي شرنا كهيسو كلمة أنعا ورنا وضنا وإنت صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر ذنوبنا وارحم موتانا اللهم اغفر ذنوبنا وارحم موتانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.